magaalada Nairobi ee dalkani Kenya waxaa ka socda wada hadallo u dhaxeeya ONLF iyo dawladda Itoobiya waxaana ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani Kenya Farax Macalin. ONLF Soomaa shaqo fiican bay soo qabteen way soo dagaaleen markii hore laakiin maanta way ka hoostay waa lagu dangaari markii lagu dangaaro markii 100 sano oo waqti ku afurwaan maqashay Soomaa markii hadda Itoobiya ay burburayso cadkoodana ay goosan lahaayeen iyagana ay sii dhiiranaan lahaayeen waaye markii ay isdhiibayaan oo masuuliyiinta oo ku adeeganayso kuwa kale u jijibiyo iyagana hadda waa meesha lagu hayo 100 sano wada dhul isku haysto miya saddex bariitiis ka soo bixi kartaa Itoobiya inteeda ka hadhayna waxa la rabaa in lagu qabsado Soomaali waliba ogaadeen lagu qabsado Soomaaliya iyada hadda waa lagu gumaystay oo lagu jijibiyo oo hadda aan ku sheegay ninka sargaalka oo shalayna ay nimanka galmudug soo dhiibeen daraadna intuu asaga meesha tagay 200 iyo xaan oo Soomaali lagu laayay isagoo ciidan Soomaaliya wato oo Itoobiya ka socdo marka horta anaga in laga waanto laga aqliyay mooyee ma midan hadda Itoobiya ay sii wado oo reerta lagu leeyahay leeshinaysa dantooda oo bay ka wataan markii laga dangaarana sidii maaldood ay sameeyeen xoranayaan dastuurku soo fariista maadana la oran alcilm baa la dhigi khayraadkii baa loo dan leeyahay shidaalkii baa wadankooda ka buuxa gaaskii baa ka buuxa dahabkii baa ka buuxa macdantii kale oo uraniumka la midka baa ka buuxa taa kaliya haday helaan waxay ka dhaadhacsan hatta qoomiyadahan farada badan oo 120 milyan inay iskaga maslixi karaan iskaga xallin karaan iyaga dad uma baahno xabashi Soomaali lama baahno dalka ma loo baahan yahay waxay ku dagaalameen waa dalka dadkana in lagu shaqeysto camiil ay ka dhigtaan haddana camiilnimadii way ka gudbeen maxaa waxay xukumaan Puntland bay xukumaan oo Somaliland bay xukumaan oo waxay xukumaan galmudug bay xukumaan oo Jubbaland bay xukumaan oo camiilka ugu dambeeyay asagana hadda iyaga oo maxay ahayd ay ku shaqeystaan waxa la waxay doonaan way ka gaari karaan ninka walaalka meesha Axmed Waliiraan ayagu shaqeeya ninka loo shaqeeya ninka wadaadka shaqeeya